soo dhawaad saaxiibada qiimaha badan maanta ciyaar xiiso badan ayaa jira horyaalada kala duwan Premier League kulanka ugu adag ayaan fiirin doonaa kooxda Manchester United ayaa caawa martigelin doonta Chelsea kulan ka tirsan Premier League waxa la filayaa inuu noqdo mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan toddobaadkan la daawan doono kulankan maxaa laga diiwaan galiyay saadaashu khabiirada maxay ka dhaheen ayaan fiirin doonaa iyo cidda guusha loo saadaaliyay Manchester ayaa kulankan soo galaysa iyadoo cadaadis kala kulmaysa natiijooyinka liitay dhawaan halka Chelsea ay ku haysan dib ugu soo laabato wadadii guulaha kadib barbara ay gashay toddobaadkii hore ee guuldadii Champions League Old Trafford ayaa lagu ciyaari doonaa kulankan toddobadii qadar 30 daqiiqo ama hal saac bar saacada geeska Afrika sheekooyinka laga qoro kulanka Manchester United guul dareysan 12 kulan ugu dambeeyay ay Chelsea kula ciyaareen Premier League garoonkooda Old Trafford 5 gool iyo 7 barbaro wixii ugu dambeysay Chelsea ka soo gaarto halka waxay ahayd May 2013 marka ay gool eber ku badisay rikoorka guulaha Chelsea garoonka Old Trafford waa milita waxay halka guulo ku gaareen 6 jeer 33 kulan taa oo rikoorka ugu hooseeya markii loo eego kooxaha ugu yaraan 10 jeer booqday Old Trafford Chelsea oo gool eber ka gaartay United bishii May waxay rajaynaysaa inay mar kale xiriir guulaha ay gaarto United-ka markii ugu horeysay intii u dhaxaysay November 2009 March 2011 xilliga tobabarka ahaa Carlo Ancelotti kulanka United iyo Chelsea ayaa kulanka ugu badan barbaro ku dhamaada taariikhda BL-ka iyo 27 jeer barbaro noqday 14 kamid ah waxay ka dhiceen Old Trafford taa ka dhigan inuu yahay kulanka labaad ee ku barbaraha badan marka laga reebo kulanka Everton Spurs oo 17 jeer barbaro ku dhamaada ama Tottenham Manchester waxay guuleystay laba kamid ah saddexdii kulan ugu dambeeyay garoonkooda kula ciyaareen Premier League hal guul daro taa ka fiican wax qabadkii 12 kulan ee ka horeeyay ahaa guul laba barbaro laba iyo 7 khasaare United waxay rajaynaysaa inay gaarto 2 gool xiriir ah garoonkooda Old Trafford isla xiraadkan iyadoo wali uu yahay Tobar Amirom markii ugu dambeysay sidaas sameeyay waxay ahayd December 2023 United-ka waxay u baahan tahay gool si dib ugu soo kabata kalsoonida taageerayaasha halka Chelsea doonaysa inay muujiso horumarka uu gaarsiiyay macalinka Enzo Maresca kulanka waa mid adag taariikh ahaan aad isugu dhow balse labada dhinac waxay gaarayaan guulo halka ay ka helaan ay noqon karaan mid qancisa taageerayaashooda koox walbana dagaal ay ugu jirtaa inay guul gaarto taa oo ka dhigan in kulanku noqon doono mid aad u xiiso badan kulan kale ayaa jiray xiiso badan oo aad u adag Liverpool Anfield ay ku soo dhaweynaysa Everton kulan ka tirsan BL-ka kooxaha dariska ah Reds ayaa ku haysa guushii shanaad oo xiriir ah taa oo sii xoojinaysa rajadooda xanashada horyaalka Everton ayaa doonaysa inay jibiso rikoorka guuldarooyinka waxay raadinayaan guul ay kala baxaan xaaladda adag ay ku sugan yihiin Anfield lagu ciyaari doona 30 daqiiqo ama 8 saac bar Liverpool waxay kaliya hal jeer laga badiyay 20 kulan ugu dambeeyay Anfield kula ciyaareen Everton dhammaan tartamada 17 gool ay ka wataan 10 barbaro iyo hal gool daro guuldaraas waxay ahayd 2021 February 2 gool iyo bar ayaa looga adkaaday haddii maanta badiso waxay noqon doontaa markii ugu horeysay 1937 ay 5 gool xiriir gaarto darbiga Anfield Everton waxay kaliya 2 jeer guuleystay 20 Marseille derby ee ugu dambeeyay Premier League 13 laga badiyay 14 barbaro Tavares ayaa guul dareystay in gool ka dhaliyaan 5 kulan ama 5 ka mid ah 7 kulan ugu dambeysay la ciyaaray Liverpool kulanka Marseille derby waa kan ugu kaarka ama roosaha badan taariikhda BL-ka 25 kar ayaa la bixiyay 12 kamid ah waxa qaatay Everton intuu tobar u ahaa Dave Moyes 40 jeer ayuu wajah Liverpool isagoo macaan oo Everton kooxdiisa waxa loo taagay 10 kaar cas balse markuu ka maqnaa Everton 15 jeer oo Liverpool wajahday sida West Ham Manchester kooxiisi waxay heleen hal kaar cas oo kaliya Nemanja Vidic ayaan laga saaray 2014 haddii Liverpool badiso kulankan waxay noqon doontaa markii saddexaad taariikhda BL-ka ee badiyaan 5 kulan furitaan xilli ciyaareedka waxa sida ay sameeyeen 19 haddii shabaqooda ilaa shadaan clean sheet waxay noqon doonaa markii ugu horeysay ee 3 kulan xiriir shabaq nadiif ah helaan tan September 2014 Marseille derby hadii jeer waa kulanka ugu xamaasada badan ama xamaasadiisu ay badan tahay Liverpool ay fursad u haysatay inay sii xoojiso hoggaanka iyo kalsoonida halka Everton ay rabto inay guuleysto derbiga una adeegsato fursad lagu badbaado yaad filaysaa inay badiyaan Reds ka meesha Tavares kulankan khayraha commentiga waa nagula wadaagi kartaa